xaaladba waa xaalad ka sii darane waxaa muddo 40 minid aan u lugeynaynay xaafadii kale ee uu ka geeriyooday aabbihii isdeldelay oon dul istaagnay geedkii isku deldelay oo weliba uu ku xidhnaa xadhigii uu nafta iskaga dhameeyey waxaana nooga warramay sidii wax u dhaceen dadkii kale ee ku agdhowaa gurigaasi iyadoo aan noo suurtogelin inay qoysku nooga warramaan sida ay wax u dhaceen taasina ay keentay iyaga oo geeriyeysnaa islamarkaana aan suurtogal ahayn inay nooga warramaan sidoo kale markii aan gurigani soo gaadhnay waxaa naloo sheegay in aabbihii dhalay aabbahani isdeldelay inuu koomo ku jiro islamarkaana loo soo qaaday magaalada Burco halka hooyadiina ay jiifto gurigii geeridu ka dhacday ila taagan ama se arkasaan oo ay shaashadu haysaa waa agoontii ninkii dhalay isdeldelay waa kuwa halkan taagan hooyadood maade hooyadoodna waa taa aad arkasaan halkaa fadhida agoontii wataa ceelna uma maqna ciidana uma qodna ciidana uma maqna waxa u maqan waxa weeyaan dadka islaamka waxa u maqan waxa weeye xukuumadda mas'uulka ka ah waxa u maqan waxa weeyaan annaka yagan hadlanay guddida abaaraha ah ay laadahay waxay ka qiirootay ama ay ka maroro dilacsan tahay waxa weeye duruufta taagan iyo xadhigii ay magaranaysaa ninkaas isdeldelay ay ka ooyasa waa arkasaan walaal arkasaan ma waraysan karayno intaasi ka bacdi waxaan xog waraysi la yeelanay si aan wax uga ogaano duruufta nololeed ee ku gadaaman deegaankaasi dadkii ku sugnaa deegaankaasi oo ka deeriyey xaaladda abaareed islamarkaana baaq u diray dadka muxsiniinta ganacsatada dawladda iyo guddida abaaraha heer qaran nuur goobtan waa kalqalib ninka shalayto goobtaa ku geeriyooday marka hore wuxuu u dhintay baahi iyo gaajo iyo harad baahida iyo gaajada markuu u dhintay waxa ka horeeyay gabadh umushay markii ay umushay ee qofku ka soo dhacay ayana ka baxda ayadana waxay u dhimatay gaajo iyo harad xaaladda aan ku noolay waxa weeye xaalad aad u halis ah xoolo dhaqataan xoolina waa naga dhamaadeen meel kalena maqan biyo iyo baadba waa weynay dadkii waxna waa kuwa dhintay waxa kalena waa ku daba jiraan guryahay jiifaan hadda laftigeeda qaar baa nula ahay oo meel ay ku sugan yihiin aan garanayn oo rag sidaas oo kala ahaa oo sidiisa u hashkadaynayay ay ka mid yihiin marka waxa laale wax aan ku meel aan u ciirsanana ma hayno waxaan u baahannahay wixii naloo heli karayo degdeg baan u baahannahay degdeg in loola soo gaaro wixii naloo heli karayo ayaanu uga baahannahay wixii islaama iyo dawladda iyo wixii islaamee taakula noo geysan karayaba aad baan u jilicsannahay xoolo way naga dhamaadeen ciyaaladii guryahay jiifaan dhalinyaradii waa la mid nafaqadii waa naga dhamaatay saa ugu tubanaanu sida xoolaha u daadanaa wixii wax kala garanaya ee rag ahaa mas'uul ahaana waa kuwa ku wada dhiftay kaa ugu dambeeyey markii uu dadkii arkay inay baahan yihiin ee biyo soo waayay ugu dambayn biyo soo waayay waa ka isdeldelay dhibaato aad iyo aad fara badan alla dhibaatada qaadi kara laakiin waxaan haystaa dhibaato aad iyo aad fara badan maxay joy dadka iyaganu waxay ahayd dad xoolo dhaqata ah dadaan maxay yeetay aan magaalo waxba ka aqoon dad neefkooda maxay yeetay jeenigooda ceerin oo maxay yeetay isticmaala oo maxay yeetay ku nool oo maxay yeetay biyo baad maxay yeetay waxaan ku neefka tanabaan ahayn neefkiina markii uu dadkii ka dhamaaday waxaad moodaa dadkiiba maxay yeetay ama mijirkiiba ha noqoto ama maxaan idhahdaa maskaxdiiba ha noqotee waxaan kugu idhi aad iyo aad ba wallahi u tabaalaysan yihiin waxaan kugu idhi dadka waxgaradkoodii waxaan kugu idhi wallahi aad bay dhibaato uga muuqataa dee dadka dhallinyaradeena waxba iyaguna wax bartayna ma aha dad meel shaqo tegaya ma aha waa dadka waxaan ku idhi dhallinyariya waayeelba isku itaalka ah ee la itaalka ah wuxoodii dhammaaday marka halkee ay ku